kulanti wanaagsan jimco wanaagsan saaxiibadeeda warka daqiiqadii la soo dhaafay ee ugu naxdinta badnaa ee laga wariyay Soomaaliya wuxuu ahaa taliyihii ciidanka booliiska gobolka Banaadir Farxaan ayaa geeriyooday waa warka ugu naxdinta badan ee maanta warbaahinta gudaha tabinayso Farxaan toddobaadkii hore wuxuu ku sugnaa qaaradda Yurub toddobaadkan bilowgiisii ayuu ku laabtay Soomaaliya laakiin wuxuu durba ka bilaabay shaqadiisii maalinlaha ahayd labadii maalin ee la soo dhaafay deegaanka Basro iyo maxkamadii Al-Shabaab ciidamada duufaan oo garab ka helaya Haramcad iyo booliiska ayaa ka saaray kooxda Al-Shabaab laakiin taliyaha iyo saaxiibadiisa oo subaxnimadii hore ee saaka u dheelmaday inay doonaan mahad salaad oo ku sugan degmada Balcad ayay u baxeen Muqdisho ka baxeen kadib iyaga oo markaa maraya deegaanka Basra Weyney ay miinaan la qaraxday dadku waxay isku qaldayaan dhowr aragti oo kala ah in taliyaha gaarigiisa waxyaabaha qarxa ay saarnaayeen bambooyin ee la qaraxday si lamida war kale oo la tabinay wuxuu ahaa in taliyaha isaga qudhiisa gaarigiisa miinada ay haleeshay laakiin sargaal kamida booliiska Soomaaliya oo aan la xiriiray daqiiqado yar oo kooban ka hor waxa uu sheegay taliyaha iyo kooxdiisa ciidanka ilaaladiisa inay ka degeen gaariga kadib iyagoo dhulka lugeynayana taliyaha qudhiisa uu ku istaagay miinada isaga oo aan markaa ogeyn wixii ka dambeeyay miinadii ayaa qaraxday taliye Farxaan oo halkan ku geeriyooday saaxiibadiisa qaarna halkan dhaawacyo iyo dhimasho ayaa ka soo gaaray boga Al-Shabaab warkan iyagu ku faanaya ayay qoreen daqiiqadii la soo dhaafay inay dileen taliyihii ciidanka booliiska mahad salaad oo ku sugnaa saddexdii maalin ee ugu dambeysay degmada Balcad oo kamid ah deegaanada Hirshabeelle ayaa isna saakay lagu doonaya halkaas in laga soo galbiyo Muqdisho la keeno laakiin warka naxdinta badan ayaa noqday in taliyihii doonayay iyo saaxiibadiisa qaarkood halkan ay ku geeriyoodeen degmada deegaanka Basra Weyney ayuu ka dhacay geerida taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir Farxaan Allah u naxariistay Farxaan mid kamid ah wuxuu ahaa saraakiisha da'da yar ee aad ugu firfircoon la dagaalanka Al-Shabaab si lamidana saameyn badan ku dhaxlaha hay'adaha ammaanka dalka waxaana uu ahaa taliyihii booliiska taliyihii Haramcad waxa uu qayb kamid ah hore ugu qaatay ammaanka sugidda gobolka Banaadir gaar ahaan xarunta dhismaha gobolka Banaadir ayuu mar uu ahaa taliyaha sugaya ammaanka xarunta gobolka Farxaan Allah u naxariistay wuxuu kamid ahaa dhalinyarada aad ugu dhex muuqato laamaha ammaanka dalka xilal kala duwan oo uu ka qabtay haddana waxa uu iska hayay ilaa laba xil oo kala ah taliyaha ciidanka booliiska iyo taliyaha ciidamada sida gaarka oo tababaranaya Haramcad waa mid kamid ah shakhsiyaadka laga tabi doono maqnaashihiisa gudaha laamaha ammaanka dalka fadlan si naxariis leh ugu duceeya waa nin daayira oo dhalinyaro ahaa saameyn badanna ku dhaxlaha laamaha ammaanka dalkan u baahnaa mahadsanideen ترياش هجامة ترياش لنا أحرام ليلة التيشة لنا ميلة ما أنت عم ساعة ورحمة الله وبركاته ماشي عم غربة الوش السعيد شغالة قيم الجود بليسك القفر وبليسك قيم قاتل هو ريان ترياش هجامة فريق أحرام أتاك حسنو دراويش أرانتي جد سي دي هرمعي قيبها صدقية لمانتين وخفر ميلو سو جرسي والطابة كم انت دمان إله الموضوع لا كورجينا وحي انت كبرنا رفاق وصور وحي وحاري انتو تنبيسان ميانا درشنا حقا تسعالا
بيشتغل لو كل أتك إلا أنت ولا تينا قراء ربك أنت كود عيسى سنكيش بوليس أسكت هو سيس جبونتير عدا عصام شغل أوبا نوك خبطوا بهذا ولا يسقط هذين مالك قراء المترجي يروك أنت بمتي شغل تيجو يدو سكرتي أما شعب أما عين لما أنتو وحيد أنت الله نحرست وحيد دعوة الله أكبر